kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa NTN TV ku soo dhawaada warkeena duurnimo qodobada ugu door karoon oo aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah hay'adda NISA oo xanibaysa dhaqaalaha loo ururinayo madaxweynihii hore ee Farmaajo war cusub madaxweyne Xasan Sheekh oo haweeney u magacaabaya ra'iisul wasaaraha dalka وفود عالمي oo ku soo qulqulaysa Muqdisho taliyada waa oo Muqdisho ku soo dhaweeyay taliyaha ciidamada Burundi ujeedka uu qorqor u tagay cadaado oo la ogaaday ciidamada ammaanka oo saaka xiray qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho meydka wiil Soomaaliyeed oo laga helay webi ku yaala dalka Mareykanka wararkeena dibaddana waxaad ku maqli doontaan caro ka dhalatay xubno ka tirsan dowladda Hindiya oo aflagaadeeyay nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam boqorka dalka Belgiumka oo boqosho ku tagay Congo qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idiin soo tamin doonaa inta aan ku guda jirno idaacadeena duhurnimo ee daawasho wacan waa maalinimo Talaada taariikhduna ay tahay 7 bisha 6 sanadka 2022 daawadayaal ku soo dhawaada warkeeni oo faahfaahsan hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliya ayaa la sheegay in ay dabagal ku bilowday lacagaha la sheegay in loo ururinayo guriga loo dhisayo madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo agaasimaha NISA Mahad Maxamed Salaad ayaa la sheegay inuu guddi gaar ah u saaray la socodka dhaqaalahaasi bangiyada dalka akoonno ka mid ahna lagu soo diro lama oga inta labadan wax ka ogyahay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo in taliyaha NISA kaliya ay u gaar tahay hay'adda NISA ayaa la xasuustaa in xilligiisii shirkado badan oo Forex ahaa ay xireen kadib markii dacwado loo soo gudbiyay oo ku saabsan in Forex ay dad badan dhaceen haatan lacagaha Farmaajo loo ururinayo ee aan la ogeyn halka rasmiga ay ku dhacayso iyo waxa laga yeeli doono ayay NISA baaris ku sameyn doontaa sida aan xogta ku helnay guddiga qaabilsan dhaqaalaha loo ururinayo gurdhiska Farmaajo ayaa waxa ay sheegeen in lacag ka badan 1 milyan oo dollar ilaa haatan la soo diray oo ay gacanta ku hayaan Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda University of Calgary ee dalka Canada ayaa shaaciyay in madaxweyne Xasan Sheekh laga yaabo in uu ra'iisul wasaare u magacaabo haweeney Xuseen Warsame oo xubinka ahaa guddigii dhaqaalaha qaranka sanadkii 2018 oo magacaabay madaxweyne Farmaajo ayaa qoraal u soo dhigay Twitterkiisa ku sheegay in uu jiro war noocaas ah oo aad la isku dhex marayo waxa uu sheegay in haweeneydaas ay tahay qof dhaqaalayahan ah balse uu jiro cadaadis xoogan oo ay madaxweynaha saarayaan xubno ku dhow oo doonaya in ra'iisul wasaaraha laga dhigo rag Xuseen Warsame ayaa shaaca ka qaaday in haddii madaxweyne Xasan Sheekh uu ka dhabayn karo arrintaas ay ka dhignaan doonto inuu buugga taariikhda Soomaaliya ka galo inuu yahay aragtiyahan isbedel doon ah NTN TV ma hayso wax ku saabsan in Xasan Sheekh uu haweeney u wado ra'iisul wasaaraha dalka inta kadib madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma ahan madaxweyne ka cabsanaya inuu isbedel taariikhiga Soomaaliya ku sameeyo bishii November sanadkii 2012 ra'iisul wasaare Saaxid ayaa wasiirka arrimaha dibadda u magacaabay Fuusiyo Yuusuf Xaaji Aadan hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay inuu ka dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Xuseen Warsame oo qaar ka mid ah dadka ku xiran boggiisa Twitterka ay arrintan rumaysan waayeen oo ay su'aalo ka weydiiyeen ayuu wuxuu ugu jawaabay aad ay dhab iga tahay waxaa jira suuragalnimo aad u wanaagsan oo ay arrintaas ku dhici karto haddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ra'iisul wasaare u magacaabo dumar waxay noqon doontaa markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya oo ay sidaasi dhacdo Soomaaliya ayaa dhawaan dhigtay taariikh cusub markii gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee golaha shacabka Soomaaliya loo doortay Saacadiye Yaasiin Xaaji Samatar daawadayaal halka nagala socotaan wali waa NTN TV وفود heer gobol ah oo ka qayb galaya caleemasaarka madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo qulqulaya magaalada Muqdisho
kuwaas oo horudhac u ah qaar ka mid ah madaxda dalka dariska. caleemasaarka madaxweynaha Soomaaliya ayaa la filayaa in la qabto 9 bishan oo ku beegan Khamiista toddobaadkan, waxaana ka qaybgalaya oo lagu xasuumay inta badan madaxda dalalka Geeska Afrika iyo danjirayaal caalami ah. qorshuhu wuxuu ahaa in 1 bishan 6 uu dhaco caleemasaarka madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud, hase yeeshee cudurdaar ka yimid qaar ka mid ah hogaankii madaxdii lagu xasuumay oo ku jiro madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa gadaal loogu dhigay 9 maalin. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa la xaqiijiyay inay ka soo qayb gali doonaan caleemasaarka madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. booqashada Muqdisho ee qaar ka mid ah madaxda Afrika, gaar ahaan kuwa Geeska, ayaa la rumaysan yahay inay u gogol xaari doonto wadahadallo lagu xalliyo khilaafaadka diblomaasiyadeed ee muddada soo aloosnaa, kuwaas oo ay abuureen kooxda xilka banaysay. Xasan Sheikh Maxamuud oo 15kii bishii shanaad ee dhamaatay ku guuleystay xilka ugu sarreeya dalka ayaa halkudhig siyaasadeed ka dhigtay Soomaaliya oo heshiis ah, dunidana heshiis la ah, waxaana indhaha lagu hayaa sida uu u xalliyo khilaafaadkii diblomaasiyadeed ee taagnaa 5 sano. taliyaha xoogga dalka Generaal Yuusuf Odawaaraage ayaa shalay magaalada caasimadda ee Muqdisho ku soo dhaweeyay taliyaha ciidamada xoogga dalka Burundi Generaal Niyigumba oo safar shaqo ku yimid Soomaaliya. Generaal Odawa ayaa dhigiisa Burundi warbixin ka siiyay xaalka ay ku shaqeeyaan ciidamada Soomaaliya, isagoo ku ammaanay kaalinta ay ka qaateen sugidda amniga dalka, maadaama Burundi ay tahay waddanka labaad ee ciidamada ugu badan ee Afrikaanka ah ee ka howlgala dalka. taliyaha ciidamada xoogga dalka Burundi ayaa kormeer ku tagay xarunta wasaaradda gaashaandhigga, isagoo ammaanay sida dalka loogu soo dhaweeyay, wuxuuna ballan qaaday in ay sii labanlaabi doonaan wada shaqaynta ay la leeyihiin dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. kooxda Al-Shabaab oo 3 bishii hore ee May weerar ku qaatay xero ku taala deegaanka Ceel Baraf ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ku dishay askar 30 ah una dhashay dalka Burundi, waxaana jira ciidamo kale oo nolosha lagu waayay iyadoo Burundi ay isku dayayso sidii ay ciidamo dheeraad ah ugu biirin lahayd howlgalka ATMIS. daawadayaal halkaad nagala socotaan weli waa NTN TV. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa safar dhulka ah ku gaaray degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud. madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayo oo maalmo kooban safar shaqo ku joogi doona Cadaado ayaa waxaa si diiran degmada Cadaado ugu soo dhaweeyay xubno ka tirsan labada gole ee dowladda Galmudug, maamulka degmada Cadaado, odayaasha dhaqanka, haweenka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. xogta ugu dambaysa ee laga helay socdaalkiisa Qoorqoor ayaa waxa ay daaran tahay sida la ogaaday inuu wanaajiyo xurguftii dhaqan ee reer Cadaado oo aysan isku fiicnayn intii uu xilka hayay ama uu ahaa madaxweynaha Galmudug. waxa uu madaxweyne Qoorqoor doonayaa inuu soo dhaweysto beeshiisa reer Cadaado, isla markaana laga saamaxo wixii hore u dhacay oo ay hadda iyo wixii ka dambeeya gacmo wadajir u shaqeeyaan. madaxweyne Farmaajo intii uu xukunka hayay ayaa waxaa madaxda dowlad goboleedyada qaar xaggiisa ay mareen oo duulaan ama salaan kaga dhiganayay in ay danihiisa gaarka ah fuliyaan. madaxweyne Qoorqoor ayaa ka mid ahaa dadkii danaha siyaasadeed u galay Farmaajo. ciidamada ammaanka ayaa saaka xiray qaar ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala magaalada Muqdisho. wadooyinka ay xireen ciidamada ayaa waxaa ka mid ah wadada Maka al-Mukarrama, jidcadayaasha ay isticmaali jireen mootobajaajka iyo wadooyin kale. ciidamada koofi casta ee ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa lagu arkayaa wadooyinkaas, kuwaas oo qaarkood dadka u diidaya in ay lugtooda ku maraan wadooyinkaas. ilaa iyo hadda ma cadda sababta loo xiray wadooyinka, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in wadooyinka loo xiray adkeynta ammaanka, maadaama magaalada Muqdisho martigelin doonto wufuud kala duwan oo ka qaybgeli doonta caleemasaarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. ciidamada amniga dalka Mareykanka, gaar ahaan kuwa magaalada Minneapolis, ayaa helay meydka Allaha u naxariistay Cabdiraxmaan Cabdi Fataax Cali oo ka mid ahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaaladaas kadib muddo 5 cisho ah oo lagu la'aa nolol iyo geeri toona. waxaa la sheegay in ciidamada amnigu meydka marxuumka ay ka soo saareen webiga Mississippi ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. kahor inta aysan helin meydka marxuumka, ciidamada amniga waxaa la sheegay in qaar ka mid ah ardadii jaamacadda Minnesota uu la dhiganayay ay u gudbiyeen inuu ku sugan yahay Cabdiraxmaan agagaarka webiga Mississippi, taasoo ugu dambeyntii la ogaaday inuu ku dhacay kuna dhex dhintay. odayaal markaana ku soo dhawaada wararkeena dibadda.
qaar ka mid ah wadamada muslimiinta ayaa waxaa ka dhacay banaanbaxyo looga cambaareynayo hadal ka soo yeeray laba xubnood oo ka tirsan xisbiga talada haya ee dalka Hindiya uu ku aflagaadeeyay nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam. dadkan muslimiinta ee banaanbaxyada dhigayay ayaa erayo dheer ku dalbanayay inuu raali gelin bixiyo xubnaha ka tirsan xisbiga ra'iisul wasaaraha Hindiya, taa oo waliba noqonaysa raali gelin dadweyne. gudaha Hindiya gaar ahaan magaalada New Delhi ayaa ka mid ah goobaha muslimiinta banaanbaxyada ka dhigeen, kaasoo ay uga xariisnaayeen hadallada aflagaadada ee ka soo yeeray siyaasiyiinta Hindiya. sidoo kale dalalka Pakistan, Qatar iyo dhowr kale oo ka mid ah dalalka muslimiinta ayay ka dhaceen banaanbaxyada. dhawaanahan dalka Hindiya waxaa ka socday dhaqdhaqaaqyo muslimiinta iyo islaamka lagu waxyeeleynayo, waxaana khasaare kala duwan uu ka soo gaaray dad badan oo muslimiin ah. boqorka dalka Belgiumka, boqor Philippe ayaa booqasho taariikhi ah ku tagay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, oo ku yaala gobol ay si naxariis darro ah ugu dhaqmeen ugana faa'iideysteen gumaystihii dalka Belgiumka xilliga ay dalkaas gumaysanayeen. safarka boqor Philippe oo qaadanaya muddo 6 maalmood ayaa martiqaad rasmi ah ka helay madaxweyne Felix. waxa uuna safarkani leeyahay muhiimad gaar ah isagoo ku soo beegmay 2 sano ka hor markii uu boqor Philippe uu sheegay inuu aad uga xun yahay dhaawacyadii dalkaas ka soo gaaray xilliga ay dalkaas gumaysanayeen. booqashadan oo tii ugu horeysay ee uu boqorku ku tago dalka Congo tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii 2013 ayaa waxaa la qorsheynayaa in looga faa'iideysto fursad dib u heshiisiineed oo lagu dhayayo boogihii iyo tacadiyadii uu geystay maamulkii gumaysiga ee dalka Belgiumka xilliga ay ka talinayeen dalka Congo. booqashada boqorka ayaa markii hore la qorsheynayay inay dhacdo bishii Juun ee sanadkii 2020 si loogu beego dabaaldega sanad guuradii 6aad ee ka soo wareegatay madax banaanida dalka Congo. hase ahaatee safarka ayaa dib loogu dhigay sababo la xiriira xanuunkii COVID-19 ee xilligaas dunida hakiyay. wadayaal warkeeni maanta aad soo tabinaynay waa naga intaas. inta aan warka xig ku kulmi doono waxaanu idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. NTN TV.